isagoo ku sugan magaalada Davos ee waddanka Switzerland madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu hortagay maalgeliyayaal badan oo madal gaar ah oo ka dhacday magaalada Davos isugu yimi waxaana la weydiiyay su'aalo kala duwan oo ku qotoma isbedelada dhinaca geopolitics-ka ama juqraafiga siyaasadeed ee Somaliland meesha ay ku taalo gaar ahaan geeska Afrika iyo dhaqdhaqaaqa gobolka geeska Afrika ee ku saabsan aqoonsiga Somaliland. Why would you say that is an important milestone? And also this presence at Davos here and the presentation you made, do you think this is a major turning point for Somalia? I would like to thank everyone who is in the room. Those of you who don't know, I am from Somaliland, the newest country in the world which have received a formal recognition from Israel on 26 December. madaxweyne Ciro su'aalahaasi tii ugu horeysay ka jawaabay ayaa waxa uu yidhi anigu waxaan ka imi Somaliland oo ah meel degan oo dimuqraadi ah oo hadda aqoonsi haysata intiin xiisaynaysa inay maalgashadaan Somaliland waxaan idin dareensiinayaa inaad heli doontaan fursaddii ay heleen sharikadihii iyo maalgashadayaashii ku dhiiraday sanado badan ka hor inay markaasi maalgashadaan oo ay noqdaan maalgashadayaashii ugu horreeyay ee lacagtooda geliyay Dubai, Rwanda iyo Vietnam. Like those who took the risk before 30 years to invest in Dubai, to invest in Rwanda, to invest in Vietnam. kadibna ka faa'iiday fursad cajiibana ka helay taasi mid la mid ah oo waliba ka sii cajiibsan oo aad ka dhargi doontaan ayaad ka heli doontaan haddii aad ku dhiirataan inaad noqotaan maalgashadayaashii ugu horreeyay ee Somaliland maalgeliya. We are a resourceful country in agriculture, in livestock, in minerals, in tourism and entertainment. waxaanu ku naallaa meel aad u istiraatiijiga waxaananu haysanaa khayraad kala duwan oo badan oo isugu jira dhinaca macdanta dalxiiska khayraadka badda gaaska amaba shidaalka iyo macdaran kale iyo sidoo kale khayraad kale oo badan kaasi oo aad ka heli doontaan faa'iido ballaaran. Multi-billion-dollar investments in Somaliland, and I think you will have the same opportunity for those who have invested in Rwanda or Dubai or Vietnam. Beyond the recognition from Israel, and I'm not speaking historically, but what makes Somaliland tick today? qofka aan hore u ogeyn tayada khayraadka Somaliland maxaad ugu sharxi kartaa ayaa la weydiiyay madaxweynaha Somaliland waxaana uu yidhi I can say every sector those who are interested is available, but key sectors are livestock. We can be a meat basket for the whole world. waxaan haysanaa khayraadka xoolaha oo ku filan qaybo badan oo dunida ah waxaanu leenahay macdano qaali ah 3 to 4 million livestock kuwaasoo aanu dhoofino sanadkiiba ilaa 3-4 milyan oo neef oo xoolo ah oo badankooda loo dhoofiyo waddanka Sacuudi Arabiya xilliga xajka. waxaa sidoo kale aanu leenahay macdano qaali ah oo dunidu aad ugu baahan tahay gaar ahaana warshadaha wax soo saarka waxaanu leenahay gaas iyo shidaal dhan kastaba waxaa diyaar ah khayraad laga faa'iideysan karo waana meel degan oo la isku halayn karo. In every aspect we are suitable for an investment. waxaa kaloo la weydiiyey maxaa sabab u ah amaba isku haya amniga iyo wadajirka Somaliland sirtu maxay tahay? What are the ingredients there, President? Well, our people has traditionally a local means to solve all issues, unlike other parties in the region. That's why we are on every because waxa uu sheegay madaxweyne Ciro in shacabka Somaliland ay si dabiici ah u leeyihiin farsamo maxalli ah oo dhanka nabadda ay ku sugaan gaar ahaana in wixii mashaakil ama khilaafaada geedka hoostiisa lagu xalliyo waxaana ka mid ah inay kaga duwan tahay arrintaasi dhinaca Soomaaliya oo dowladaha caalamku ay ku daaleen shirarka istaba joogga ah ee markaasi dowlad dhisidda Soomaaliya lagu bixiyay. We have a local mechanism to resolve conflicts, and that's why Somaliland has been kept peaceful
taasi beddelkeedana somalilan ay xoogga saarto in dadkeeda ay wada hadlaan oo arrimaha amniga iyo danaha iskaga xidhan ay ka wada hadlaan iyagoo wada fadhiisanaya. It's interesting because you've acted as a state for decades, so you're self-declared. Are you now explicitly? waxaa kaloo la weydiiyey fariinta uu u dirayo hogaamiyaasha caalamka ee ku sugan magaalada Davos ee waddankaasi Switzerland. What are the hopes for that? isagoo arrintaasi ka jawaabaya madaxweynaha Somalilan waxa uu sheegay isagoo sifeynaya Somalilan. We are a peaceful country. We are a democratic country who make elections unlike other parts of the region. Somaliland for over 30 years it has. I'm the 6th president. I came by election. inay tahay dal dimuqraadi ah oo xukunka doorasho lagula kala wareego waana midda ay kaga duwan tahay dalalka dariska la ee Geeska Afrika. waxa uu yidhi Somaliland waxay buuxisay shuruudihii dalnimo sidaas darteedna hogaamiyaasha caalamka waxaan ka codsanayaa inay ajiibaan aqoonsiga Somaliland oo ay xaqeeda siiyaan. We have fulfilled all the criteria for becoming a country. su'aal kale oo la weydiiyey ayaa u dhignayd sidee ayaa aqoonsiga Somaliland uu noqon karaa mid wax ku kordhiya xasiloonida gobolka oo aan xaalka uga sii darin xasaradna aan keenin. Recognition would provide stability, not instability. Well, I think many countries of the world are making relations with Somaliland despite our lack of recognition. madaxweyne Ciro waxa uu sheegay in Somaliland aqoonsiga ka horba ay mas'uul ahayd oo ay qayb ka ahayd amniga iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. haddana waxa uu sheegay in Somaliland ay u taagan tahay xasiloonida iyo wanaagga gobolka iyadoo heshay ictiraaf caalami ah. I think this is fascinating that we're here in this venue and you have aspirations. waxaa kaloo la weydiiyey su'aal ku saabsan waxaad rabtaan inaad gashaan heshiiska Abraham Accord maxay tahay sababtu iyo rabitaanka aad muujiseen. In principle, Somaliland policy is stability, is peace, and this initiative is mainly for peace. It's initiated by President Trump. mabda ayaga ayaa waxa uu ahaa marka horeba inaanu nabadda u taagnayn oo aanu nabadda qayb ka ahayn. hadda qorshahan cusub oo hindisihiisa uu leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa isaga laftiisu uu ku fadhiyaa mabda nabadeed oo ah in nabad laga shaqeeyo. waanu soo dhaweynaynaa qorshahaasi uu wado madaxweyne Trump ee loo yaqaan Abraham Accord. sidoo kale Israa'iil aqoonsi ayay u fidisay Somaliland. taasi beddelkeeda waa inaanu qayb ka noqonno geedi socodka nabadda ee uu soo abaabulay madaxweyne Trump kaasoo ah Abraham Accord kaasi oo muujinaya hanaan nabadeed iyo wada hadal iyo sidoo kale wada xiriir bulsho. mar kale waxaa la weydiiyey ma filaysaan in Mareykanku uu aqoonsan doono Somaliland. Do you see the Americans recognizing Somaliland sooner rather than later? Hopefully, I have written a letter to all leaders of the world on 17 May. adduunka oo dhan ayaan waraaqa u kala diray 17kii May 2025. Trump waa uu ku jiray hogaamiyaasha aan dhambaalkaasi la wadaagay waxaana aan ku rajo weynahay maalin uun inuu ka soo jawaabi doono. For those who don't know this region, the neighbor of Somaliland is Ethiopia, which is landlocked. It's a market of 110 million people. It's fast growing. waxaad daris la tihiin Ethiopia sidee ayaad uga faa'iideysan kartaan inay suuqyada caalamka u gaadho iyadoo isticmaalaysa dekedda Berbera maadaama waddanka Ethiopia uu yahay mid ay ku nool yihiin shucuub fara badan oo wax dhoofiyo waxna la soo degaan. Well, we have a very good, friendly and cordial relations with Ethiopia, including trade and security partnership with Ethiopia. We want to increase our trade with Ethiopia, our partnership in security. madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia uu yahay dal weyn oo daris la ah Somaliland dad badan ay ku nool yihiin isla markaasina ay Somaliland qaybteeda ka qaadanayso sidii markaasi furfuraanta dhaqaalaha gobolka iyo Ethiopia loo gaari lahaa. Ethiopia ay u baahan tahay dekada aad u badan inay isticmaasho iyadoo markii hore isticmaalaysay Djibouti ayaa haddana ay isticmaali kartaa Somaliland iyo dekada kale oo badan oo weli ay u baahan tahay dekada intan ka badan inay isticmaasho maadaama dhaqaalaha Ethiopia uu u baahan yahay meelo kala duwan inuu xiriir la sameeyo. sidoo kale Ethiopia ay u baahan tahay badaha inay gaadho si ganacsigeeda ay u socodsiiso arrimahaasina waanu ka wada hadalnaa ayaa uu sheegay.
in liquid countries of Africa. sidoo kale waxaa la weydiiyey madaxweynaha somalilan mr cabdiraxmaan xiriirka etoobiya iyo doonisteeda ku saabsan gaadhista badda. Well, I think we recognize the need for the Ethiopian country, for Ethiopia, for access to the etoobiya sea. waxaanu nahay saaxiibo iyo daris waxaanu rumaysannahay oo aanu aqoonsannahay in etoobiya ay leedahay xaqa ah in ay hesho meel ay badda ka gaadho. Commercial ports, corridors. waxaanu wada horumarin karnaa kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo laga wada shaqaynayo isla markaasina laga faa'iidaysanayo arrintaasi. As an example to how do you provide, financial security and controls over the investment, and what has actually happened since the Berber port was. dhanka kale waxaa la weydiiyey su-aal ku saabsan dhinaca maalgeliyayaasha iyo dhiirigelintooda waxaana la weydiiyey si ay u soo dhiiradaan maalgeliyayaashu maxaa tusaale u soo qaadan kartaa oo dhiirigelinta qayb ka noqon kara marka ay tahay maalgelinta DP World iyo waxyaabaha ay la kulantay iyo waxyaabaha arrintii ay samaysay intii ay joogtay haddii ay horseedo shaqo abuurka dhalinyarada dekedda ka shaqaysa iyo sidoo kale shirkadaha ganacsi ee ku soo biiray aagga cashuuraha ka caagan ee free zonka loo yaqaano ee berbera ka howlgala kuwaasi oo haatan sii kordhaya marba marka ka dambaysa. We thank DP World for making that brave initiative of investing in Somaliland in 2016. And also we thank to the British investment company who also madaxweyne cabdiraxmaan waxa uu mahad celiyey DP World oo uu sheegay inay go'aan geesinimada ku qaadatay maalgelinta Somaliland sanadkii 2016 iyo sidoo kale in sharikadda maalgelinta ee dowladda Ingiriiska oo iyaduna saami ku leh maalgelinta DP World taasina waxay caddayn u tahay buu yidhi Somaliland inay tahay meel la maal gashan karo oo la isku halayn karo. intaasina waxa uu ku daray in Somaliland aqoonsiga ka horba ay muujisay in ay tahay meel nabad ah oo hannaan dimuqraadi uu ka jiro sidaas awgeedna ay tahay meel la aamini karo taasina waxaa caddaysay oo tilmaan u noqotay maalgelinta ay samaysay sharikadda DP World. I just want to ask you your personal impressions of being in Davos here. maxaad ka wada hadasheen hogaamiyaasha ganacsiga ee caalamka ee ku sugan magaalada Davos kuwaas oo aad la kulantay ama wada sheekaysay maxaad kala kulantay marka ay tahay inay diyaar u yihiin inay tagaan geeska Afrika oo ay maalgeliyaan nala wadaag falcelintooda. This is a great opportunity for me and for my people and for my country being in Davos. We have met different entrepreneurs, different investors, billionaires and millionaires. madaxweynaha Somaliland oo ka jawaabaya arrintaasi ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii fursad weyn bay ii ahayd aniga iyo dalkaygaba inaan joogno halkan Davos. waxaan la kulmay hal-abuurro ganacsi maalgeliyayaal iyo maalqabeenno milyaneero iyo bilyaneer ah waxaanan rajaynayaa inay soo jiidan doonto khayraadka Somaliland iyo geeska Afrika oo aanay hore uga warqabin hase ahaatee hadda la soo bandhigay oo markaasi ay maqleen. inkastoo su'aalo badan la weydiiyey intaasi waxay ahaayeen kuwii ugu nuxurka badnaa ee markaasi wax laga weydiiyey madaxweynaha Somaliland oo hortagay su'aalaha iyo sidoo kale meel ay ku sugnaayeen maalgashadayaal fara badan oo qayb ka ahaa shirweynaha dhaqaalaha dunida ee ka socda magaalada Davos ee waddanka Switzerland.